Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Qaybtan waxaan rabnaa inaan kaga hadalno wax muhiim u ah markaa business ku jirtid. Waxaan rabnaa knowing your competition, dadka kula tartamaya inaad baratid. Yacni maadaama niche aad dooratay ama aad rabtid inaad alaab aad iibisid, waxaa laga rabaa marka alaabtan aad iibinaysid yaa kula iibinaya. Marka waxaa laga rabaa competitionkaaga haddaad baratid, waxaa baratay yacni meesha aad lacagta ka heleed. sababtoo ah competitionka validates the market. Yani competitionka waxa waaye qofka go-aanka ka gaaraya suuqa and ensures that there is money to be made in the niche. oo yani hada competitionkaaga inaad ogaatid waxay kaa caawinaysaa yani meesha lacagta aad ka helaysid. sidoo kale wuxuu go-aan ka gaaraa yani nichekaaga inaad lacag ka heli kartid, faa'iida ka samayn kartid iyo in kale. marka aragtid inaad nichekaaga iyo waxyaabahaas ama competitionkaaga aad baaritaan ku samaysid, waxaa u baahan tahay waxyaabahan soo socda inaad fahantid. Number one, learn who your direct competitors, yani dadka sida tooska kula tartamaya yihiin oo alaabtan adi suuqa aad keenaysid ama waxaan aad rabtid inaad iibisid kula iibiye yihiin inaad fahantid aa lagaa rabaa. Number two, learn who the rep star on the niche, yani yaa number one ku ah. Tusaale telecommunicationka marka Soomaaliya la dhaho hormuuda number one ku ah. The same waxaa lagaa rabaa inaad fahmi kartid alaabtan adi aad rabtid inaad keentid yaa waay dadka yani rock star ku ah oo lagu yaqaanaa. hadda hadii yani coffee waxyaabahaas la dhaho baydana anidaada kusoo dhacays. The same waxaa la rabaa bangi haddaa is dhahid salaam bangi kusoo dhacays. dadka markay productiga is weydiiyaan shirkadee magac yani magacooda kusoo dhacdo, waxyaabahaas inaad ka fahantid aa lagaa rabaa. waxaa kaloo lagaa rabaa learn who are the bigger players, yani waxaa lagaa rabaa yaa suuqa bigger playerska oo yani aad ugu xoogan oo alaabaha adi aa iibinaysa iibi. waxyaabahaas dhan inaad fahantid aa lagaa rabaa. sidoo kale waxaa lagaa rabaa note down inaa yani note garaysid what you like and dislike about their approaches, yani approachkooda qaabkay wax u wadaan, businesska say u wadaan, competitorskaaga maxaa ka jeclaatay, maxaa ku nacday, waxyaabahaas dhan inaad note garaysid sidaa lagaa rabaa. sababtoo ah yani waxaa kasoo qaadaa adoo alaabka adeeganaya camal qofkan competitorkaaga qaabka wax u iibinaya, qaabka onlineka alaabta uga iibi, waxyaabahaas dhan waxaa laga rabaa inaad fahantid yani maxaa ka jeclaatay, maxaa ku nacday, waxyaabahaas dhan inaad note garaysid beri maxaa la dhahaa adiga ugu dagaalantid. marka sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaa note down aa ku samaysid what you like and dislike about their social media and website. tusaale hadda websiteyada qaar markaa geshid kasoo qaad the blue star camal qaabka designada ay u sameeyaan, waxaa laga rabaa websiteka inaad baartid qaabkan camal aa u baartid, yani xogtooda aad raadisid, wax ay haayaan, wax ay iibiyaan, designadooda qaabkay u shaqeeyaan, dadka customerska qaabkay ugu respond garayaan. tusaale hadda customer reviewga camal dadaa comment kasoo bixiyey alaabahan u baahan, waxaa laga rabaa marka shirkad oo customerka u reply garaynaysa miyaa, waxyaabahaas dhan inaa yani maxaa ku jeclaatay designkooda, qaabka yani articleska ay u qoraan, tusaale bla 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 bla, yani xogtooda inaa aqrisid, maxaa ka fahantay, maxaa ku jeclaatay, waxyaabahaas dhan aa lagaa rabaa marka inaa focus garaysid. waxyaabaha kale oo muhiimka ah waxaa ka mid ah lagaa rabo think how you can emulate their strategies as you start an e-commerce business. maadaama adi aad rabtid yani inaa e-commerce business bilowdid, yani istratijiyadaha ay isticmaalaan dadkan kale competitorska dadka kula tartamaya inaa baratid aa lagaa rabaa, inaa fahantid qaabkay wax ku wadaan. yani hadhow haddii xitaa strategies aadan haynin inaa ayaga copy garaysid, haddii business fiican oo si fiican u shaqeynaya aragtid inaa copy garaysa lagaa rabaa oo xogtooda iyo waxooda aa isticmaashid qaabkay u shaqeeyaan. haddii qof creative hal abuur la aad tahayna inaa wax cusub la imaatid. sidoo kale waxaa lagaa rabaa find out who their customer base is exactly to be the best of your ability. marka waxyaabaha kale muhiimka waxay tahay competitionka markaa baaritaan ku samaynaysid inaa fahantid yani customerka basekooda intee waaye, intee ku howlgalaan, intee wax ka adeegtaan, yani customerskan yani social media pagekay ku xiran yihiin, yani qaabkay wax u gataan, dad may soo wacaan, commentay may wax ka tagaan, all these inaa fahantid aa lagaa rabaa, aaday muhiim u yihiin. sidoo kale waxaa lagaa rabaa discover what sells the best, yani inaa baartid maxaa iibsamaya, maxaa suuqan yani wax ka ah, maxaa yani
aad ay dadka u raadinaya waxabaas dhan marka stage researchkaaga ama market selectionkaaga inaad ku dartada lagaa rabaa sidoo kale consider similar products or service yani serviceyada iyo productska aadka loo daneynaya inaad baari kartaa lagaa rabaa si u baari kartaa marka you can do through social media ka samayn kartaa looking online marketplaces tusaale hadda markaa rabtid inaad wax baartid aad kasoo qaad meeshaan google-ka haddaa waxaa kasoo raadiyey kasoo qaad saacadaha kusoo qoray saacado ama hadda kasoo qaad search aan dhaho halkaan saacado fashion aan kusoo qoray saacado fashion markaa soo geliyey waxaa iisoo baxaayo yani wixii saacad la xiriiro lasoo xayeysiiyey oo ku jiro hal mar haddii bag aan dhaho saa ujeed saacadaha dhan waa kuwaana yani saacadahan okay waxaa soo geliyey ilwaad style aa soo gelisay ow ilwaad style saacadahan soo gelisay kasoo qaad marka waxaa qiimeynaya customerka hadda qoladan waxaa la dhahaa some jeep deals ayagana waxay soo geliyaan saacadan marka saacadan waxaa laga yaabaa waxaa la dhahaa magaceedii aragtay waxaa fiirinaya dadka yani si fiican bay u gadanayaan oo suuq fiican bay leedahay markaa fahantid saacadda inay suuq leedahay in kale waxaa samaynaysaa qaybta commentigooda raadinaysaa dadka dalab badan hadday ka samaynayaan oo dad badan ay soo dalbanayaan waxaa raadi kartaa tusaale waxaa la dhahaa SKME watch aa la dhahaa mahino waxaad tagaysaa Alibaba tusaale qaabkan camal aa usoo raadiya haddaay Alibaba tagaysaa automatic maadaama hadda ayaga waxaa laga yaabaa saacadaha inay gadayaan waxay dhaheen $35 tan $48 tan waa $48 kuwii kale maxaa la dhahaa $35 ay iibinayeen marka saacadahan aad rabtaa inaad raadisid dhowr qaabaa jiro oo loo raadiyo waa idin tusi doonaa number one yani waxaa jiro Google waxay leedahay wax loo yaqaano maxaa la Google Lens oo barnaamijkan saacadaha camal aad rabtaa waa iskaan gareynaya automatic meel walba lagu iibiyo way kuu soo saaraysaa marka anaga waxaa rabnaa halkan Alibaba ka baari kartaa waxaa dhahaysaa SK waxaa la dhahay ME watches waxaa la dhahaa okay waxaa la dhahaa SKMEI okay qaabkaas u raadinaysaa marka sirji aadaysaa marka wuxuu kusoo bandhigaa saacado lamid saacadahan markuu kusoo bandhigo yani waxaad isbarbardhigaysaa qiimihii haddii waxaa laga yaabaa $6 $7 $5 inaad saacadan ku heshid yani waa dalbanaysaa raggaan marka maadaama tafaariiqda ay gadayaan $40 iyo $30 hadi waxaa iibinaysaa $15 $16 marka qaabkan waxaa waaye market researchka sida loo suubiyo sida yani competitorska dadka kula tartamaayo waxabaas dhan analyze aa ugu samayn kartid yani shirkadaha oo playerska suuqa ku jiro tusaale shirkadaha dhan aad kasoo qaad alaabaha ay bixiyaan waxaa waaye waxaa la dhahaa waa akhrisanaysaa bis hadda dalbo nagala soo xiriir magac ma sheegayaan okay kan camal waa raadin kartaa waa iskaan gareynaya hadda meeshaan waxaa waaye asxaabta gameka ciyaarayso waxaa la dhahaa finger sliver $3 qaab loo dalbadaa jiro su'aal hadda customerka akhri saaxiibow alaabtan aad ayay ku anficee dambasta isaga marka hadda kan camal markaa rabtid inaad baartid magaciisa qaadanay finger sliver aa ku qoranay all this hadda caseskan camal caseskan hadda qoladan waxay gadaan kasoo qaad qaabka ay ii sheegayaan $18 $6 $7 meelaas iPhone caseska marka hadda waxaa sameynaya dhag waa qaadanaysaa xogtiisa baare marka kuwan gabdhaha loogu talagalay all this market research aa la dhahaa qaabkan customerka inaad daba gashid yani waxay keenaan aad fiirisid alaabaha say u iibiyaan designkooda baaritaankooda aa ku samaynaysa waxaa loo yaqaanaa market research marka halkaan aan ku koobaa market researchka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu